Aldon qoraal dhowr ah ayuu Facebook soo dhigay waxa kamid ah qoraaladaasi qoraalkan uu ku leeyahay liyu booliska halala dagaalo af kale oo yaqaanaan ma jirto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قالوا وحدير جينا ذوق عفمات قوم أنت مقال كسنة أكو داودون تان وهرين به أبديت كين لسه سبسكرايب سرسو كانوا مقال كان لايك راي قيبتكم التجاني مقال كان أكاد دونه أدريجو إنه لسه فني سد عذا كم التج وسوي شباب أوكي معلومة لايك تين ويرتا فضلا صاحب يا لايك تهلا بديو سلام مقال سركوس أركتين به وحا قرالة بدن إيزو درين دد وكلا دشتي دول ديجانك إيولو سومالا أيقول إله نكلا صار كدي مركي ninkan loo magacaabo Cabdimaalig Muuse Caldoon oo samafal sidoo kale wariye ahaan jirani halka looga dhigay asoo lagu haysto wuxuu gaaleeyay Liu Police ciidanka loo yaqaano Liu Police-ka haddaba horto dadka waa isku day doona dhaxaadi laakiin horta aniga culimo mi sheekhna mihi inta aqoonteeda gaarsiisan tahay ayaa qoraaladiisa u akhri doona una fiiri doona horto gaalnimada wax fudud maaha laakiin Caldoon calaamadaha uu cuskaday ama qodobada uu cuskaday waa fiirinayna si daacadan ugu jawaabi doonaa Cabdimaalig Muuse Caldoon ayaa waxa uu gaaleeyay oo gaalo uu ku tilmaamay ciidanka loo yaqaan Liu Police isagoo ku haysto inay xasuuq baan ay ka geysteen dacwalay iyo maalmaha dhan meel isku dagaalay Caldoon qoraal dhowr ah ayuu Facebook soo dhigay waxa kamid ah qoraaladaasi qoraalkan uu ku leeyahay Liu Police-ka halala dagaalo af kale oo yaqaanaan ma jirto waa mid kamid ah qoraalada uu soo qoray waxa kale oo dhahay Caldoon waxa aan ugu baaqayaa dhammaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ee deegaan dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya sida in ay deegaanadooda ka saaraan ciidanka Liu Police ee u adeega gumeystaha wuxuu ka wadaa Itoobiyaanka diin ahaan waxay haystaan Masiixiyadda qaarkoodna Yahuud waay qoraalka uu soo qoray waxa uu dhahay Caldoon reer Soomaali galbeed Liu Police reer mi ma aha qabiil gaar ah ma aha qabiil kasta way leeyihiin waa mujrim lisku geeyay oo cid walba leh oo gumeystaha Itoobiya u shaqeeyo oo xasuuqyo badan ku sameeyo qabaa'ilka Soomaaliyeed oo dhan cid dhaafan ma jirto sida darteed reernimo ha ula dagaalamina idinkuna reernimo ha u dagaalina ula dagaalama inay yihiin xadgudbayaal aad ka difaacaysaan xoolihiina nafsadiina diintiina iyo ehelkiinaba yani meeshan uu ku leeyahay diintiina wuxuu ka wadaa Caldoon in ayaga diintaasi aysan haysanba live TikTok sidoo kale wuxuu ka sheegay Caldoon in qofkii gaala raaco oo gaal u la mid yahay soo ula jeedo Liu Police ay gaal yihiin waayaha qoraalada waan akhrinay Caldoon oo ku haysto Liu Police-ka imikana ka jawaabna su'aasha marka oo ah gaalnimada ku saxan yahay Caldoon inuu gaaleeyo Liu Police-ka ma soo ku qaldan yahay horto qofka muslimka gaal in la dhawo adag tahay laakiin gaalnimada ogow qofka inuu dhaho gaal ah kali gaal loo noqdo hadii qofkaani xasuuqa muslimiinta uu geysanayo uu bato yani dhiiga muslimka lagu gaalooba hal qof aad disho kuma gaaloobayst laakiin hadii wixii aad caado ka dhigato dad muslimiin ah layso waa lagu gaalooba xiriirinta gaalada waa lagu gaalooba iyo gaalnimada caado oo cadeysato intaas oo dhan waa lagu gaalooba marka hadii Caldoon ciidanka Liu Police-ka xasuuqa oo ku eedana ee saxta يعني قال لي موي لكن هدي حسوق إسن جيسان أردن أساكو قلدن هذا الكلام جوابته كوات سنة يجسوا جيسان قف هدوجرا أو ديك مسلم عادستي دخل كديكته وقال له بيا هدي أردن Liu Police أو بينك شيء Liu Police قال ما تاسع أقول شو بيا إني كأدين دينا يا أنت كمحل أنت عامل إيه متجوي ما يلا لسود على متجوي هذا الكاس هذا لا هين ما كده كرو بل إذنك كلا سارة أردن هذا الكلام بقول دنيا بس أكو صحيح ما كان في رصيد dhaqamada Liu Police agtaada maxay dadka miyaa xasuuqan bal fiirkiina komatiga muuqaal qaybtiisa dambe qisa xanuun badan si hor dhicina ka soo gudbido ila daawada waxaan leeyahay muuqaal kooban ayuu ahay bye bye qadi iskuulka markaa heshay maxaa ugu tagtay no wax ku dina shaqada iskuulka maxaa ugu tagtay wali ceeri wali ogaadi wallahi been دخدي عنك هاي ستم كسر نقصي إماتي ساعتي أنا أنكو أوغا ماني ساعتك كدونا إماتي مركز علي أركي أنا والله باشالي رومو أدلونو
انت yaabtay waxay tiri madaxda iskuulka la hadashay waxay tiri ay gabadha yaa shaqada siiyay anaga siina maxaa dhacay gabadha waaba cunugan hooyadiisa wala dheelo safraad markaas waxa la dhahaa oo kaal maariya cunugan focus waxa la calashan indhaha ku haysa ilaan waa cunugaagi maxaa ilmo kale ma igu qosay ilmo cad ma aan ma dhalaada markaas waxa dhahan waayanu saca horta hor alla noo kala wada marka tagto ku soo guursatay أنا ما والا شيء تمن سنة إلما محاول دلواي مركل إلا يقاطع كعبسنا سومالي يا بوفيس إبن إيجاسيانا إيبوفيان شن تمن سنة إلما مقدلين ودي ذنن أراسو إلما إنا دلوا ويقعبسيان إيه ماريا كل كفت ما يدعي هاي مثلا أبو يا قرحين إنه عادي قرحس مجر هيك خلاص أخذت فاجتها صح واكر برافو فرت مجر هيك تكات لي دلويا ما هذا معي عينه صح ما شاء الله الله يكون بركيه حواي آمين الله يكون بركيه اوكي اسكولك اسيغو دغنايا قاب شقاله ahaan inaa ka shaqeeyso u gashay khayaan wala qarxinaya intaas ka jaraya comment ku dhigriya wallahi jacala tahay aqliga sameeyay iskuulku dhiganaayay waxa u gashay qof ka shaqeynaya amal si asagoo aranto laba isbuuc waa ka dharkiya ku dhaay barafka hirikii isku soo siisiin waa isku kor seexana ku guumoya dheelnay baashaal waa raaxeysana ku dhahay hirikii badana dheelna ku dhaana cunugii waxa ku weydiinaa su'aalo lagu weydiinaya jirta Xuseen iyo maalmaha dhalinyarada media ku weydiinayeen oo lagu dhahayo ma qabta waxa tiri nina ay qaba sheeqaale maranba Umar ay qaba اوكي عمرك وقرصدي عمر لو كن iyo waxa is aroosnay 3 san ka hor اوكي toonigi 21 اوكي 22 ما شاء الله qabiilkaaga yaa waaye aboobo maxaa qabiil aad ku falaysaa hadaa ay caabin kartin ma ay caabisid adiga dhaqan ma balihid uu yiri dhaqan oo Soomaali ma lihid aniga qof dhaqan Soomaali waa leeyahay dhaqan Soomaalina waa ahay waayahay ma si fiican igula sheekaysid uu yiri abo hadda si fiican kula sheekaysana laga yaabo in stress ihaayo oo xanaaqayga wax yar madaxa oo inta iga saariya laga yaabo iga raan ku kaaraali gelinaya laakiin waraqta satay caawin kartay caawi waraq aan ku caawinayna ma jirtay hadaadan si fiican igula hadlaynin waa iska bixi kartaa ordo bax اوكي ما lacag u rabo marka لا مية لعك سكر بقى لعك إسي ميدين حتى ما وح لعك إسي إما دين حتى ورق إذا يقوم عابي كرتمانه ورق أنكو عابي كرمتشرو أنا كنا مرك عقلي جيجا مرك وقت جت حتى سعد يقوم فيلنان أو قفنا ولا مشي كسنجرين والد أو عقل عليا نمان الله هين أوكي محاولي بس أنا محاولي بس قبل أقعدنا هاي ومتقنا عنقي اللي قاطي أنا هذا معانا قبل صوماليين نواة هاي ودن قربنا واجبناي أنا هذا معنا نسي الماء محاولي أبو حتى قبيلك أنا أشياء إن كلام مشي كريم فمسا سعيد ما حسست لكن وحن حسست إنه سجب جبيي ويري وحن كوا عابنا مجري أرض إسكبح. أوكي مساج كم قبيل أنا نيو لو جوا مساج كالكاس. ها لو دان بيرنا قبيل على سكوب تجالي جرسنا ذا هنفرها بدن إجانا رال نقد عنيجا إذن أتاك إذنكم إهي وأوجا إن إرجعسن السين أتاك إذنكم إهي لكن قلبي جيجا وحي كجرو بس عشان جايا وأوجا هاي كليب كانت أو لشرشرو إن أركيدونتين لكن عنيجا أتاك إذنكم إهي هذا كلام مساجد كاسي أو نروي كتالنا وشرفايا وبيت الله لكن أنا عنوجا إجا مكان ويعابين ويسن أنت بس شجايا حتى قلت إذن كلنا إجراء النقطة لكن وحي رون شجايا فهمت صح بيت الله صديقك كسات اللي يالاي أو صحن لو جلايو بل أنا أنت أرتينا من كنيسة أنا أرتينا حتى كنيسة أنا نجعلتها نقيسينه بل أنا أنتنا وأرضينا ماشان وأرضينا عن الربان ما أنت إنن أجادو ما أنت حتى كنيسة عن أهلها عن إلها كالي إعاوية وحدها سي